ilaysta maxaa yeele waxa laga yaabaa lan qof kasta waxa indhaha la raaca macnaheedu ma inuu ilaysanayo dadku way kala duwan yihiin culimadu marka waxay leeyihiin horta qofka waa imtixaanan yahay oo ilaahay baa imtixaanay imtixaanka rabbina inuu u dulqaato way marba haddii shanigiisu sidaa uu yahay ka warto inuu adkaarta u badiyo adkaartani inuusan ka mashquulin oo mar walba adkaarta uu badiyo guriga markuu ka soo baxayo bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa qofka markuu saddex jeer u yiraahdo maalinta dib ma soo gaaraya adna dib ma gaarsiinaysa dadka adna lagu soo gaarsiin maayo allahumma inni a'uudu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla wa adlima aw udlama wa ajhala wa yujhal alay adkaarta aqri dadna ma dulminaysid adna lagu dulmin maayo horta qofkii inuu adkaarta afka aanu ka qaado waa mid arrinka labaad inuu qofkan uu ogaado waxaan ilaahay baa bixiyey fadligan hebel uu haysto adna aan lagu siin ilaahay baa bixiyey am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allah min fadlih faqad aatayna aala ibraahiima alkitaaba walxikmata waaataynahum mulkan cadiima dadkii miyay ka xasdayaan waxaan ilaahay baa bixiyey hebelna ilaah baa siiyey hebelna ilaah baa siiyey dadka ha ka xasdin ilahay subxana wa tacaala bixiyey arrin kale qofkii inuu ogaado qofka kan aad xasdaysid waa nin muslimo walaalka ah ilahay isaga yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamna baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وروحا اندهاك الراعن ورما إذنك قيبية والذين كلا ديرات سيه هبلنا كم بالسيه هبلنا كم بالسيه هبلنا والله ديدي هبلنا لو ما ديدن انت بإله أدايا معناها ومعناها نباهنا وحكى الله نباهنا قفك إنه يفهمه مركا ددك إلي سنة يسيد أما قفك ددك إلي سنة ها أقاذو inuu godob uu ka galayo qof muslima walaalkii maxaa xadiidka waxa ku cad Abu Umaama ala ma yaqtul ahadukum akha war midkiimika kale muxuu u dilayaa faraha ka qaado waxa kale ogaanaysaa qofka dadka ilaysi inuu mar walba ilaan waa xasadka way waxa kan ilaan xasadka isdhex galaya qofka dadka xasda hadaan si kale u dhigo qofka dadka mar walba xasdaya xasadku ugu dambeyn qofka wuxuu dhaxal siiyaa murug fara badan adaa walwalay adoo murug kugu tahay biidin ilaahi subhanahu wa ta'ala hadaan ka laaban way culimadan hore waxay yiraahdaan dadka ma jeclaan doonaano mahmaadii carabta waxay al-hasuud la yasuud qofka hadduu xasad badan yahay waligii dadka marka uma taliyo nin dadka marka ay sayid ay dhahaan ay ka dambeeyaan ma noqonayo maxaa leen kii wax helaba wuxuu leeyahay ma aragtay wax xasdaya kii wax helaba waan xasdaya kii wax helaba xasdaya bini aadam kale marka sida in marka laga dhiga ma arrin kale wuxuu yahay qofkii inuu ogaado ciribta dambe shaygan marka uu leeyahay inta marka la helo oo arrinka sida loo fahmo biidin ilaahi subhanahu wa ta'ala xalka marka uu imanayo waxay kale culimadu isweydiiyaan jinka ilaan badanaa markii soomaalidu waxaa la dhihi jiray il insi iyo il jinba allah kaa koriyo kelmaddaas aad bay runta u badnayd haddii badanaana la waayo oo insi baa ilaysta haddii la waayona jin baa ilaysta baa la dhihi jiray jinku isagu wax ma ilaystaa jinka nusuus baa ku soo aroortay inuu wax ilaysan karo nusuus baa ku soo aroortay nusuustiisana waxaa ka mid ah xadiidka umu salama rasuulka sal alla alay slam wuxuu ku arkay ma aragtay fii beyti jaaratin fii wajhiha في بيتها جارة قبر بعد جوكتي في بيتها جارة قبر مركا صفعة يربى لها صفعة وجالة ير وجه جب مذهب كيس يسبدلي مركا يصير استرقوا لها فإن بها النظرة هلا قلت فبويري محايا لوالا إلى السبيري طبعا علماء مركا وحيلين صفعة كلمة دا اللغة أهان وحي تلمام يسا والجني بي علماء دهان ضد كفر سري وحي هاتبا قارنا وأيدي ديه تكلوا حلو من شر حاسد مركا اللي يرادو xaasidku waxa soo galaya insigana uu soo galaya jinkana uu soo galaya laakiin culimadu waxay ku kala tilmaamaan oo dhahan bini aadamka marka loo baxo waswaaskuna wuxuu gaar ku yahay jinka xasadkuna bini aad wuxuu gaar ku yahay dhahan labadaba isla wadaagaan jinka iyo shaytaanku isla wadaagaan insiga intu way isla soo galaan saa darteed qofka hadduu aqriyo qul a'uudu bi rabbil falaq way ku filantaa biidin ilaahi subhanahu wa ta'ala qul a'uudu bi rabbil falaq قل أعوذ برب الناس الفاتحة هداد أقرسيد وأتراد والله إليه أذا قردرا معايا بإذن الله سبحانه وتعالى إليه وكو دفاعيا ومبا أن المركة حجم أن ترضى بضا إما أنت اللي السيئي إيش يهولها كلابا اللي السيئي ومبا أن إن هركا إيقاران بإذن الله سبحانه وتعالى آيات باكو قفلا أما أذكارت إن الأقرية وحاجر تمركة أذكار فربضا وضدكي واجي هرا كتاب قابلوغا أنديه جرني أقرين جرين kutubtooda maxaa ku qornaan jiray markaad aqrisid gabay baa ku qornaan jiray tix sharci gabaya waxa ku qornaan jiray waxyaabaha dadka lagu tufa waxa kamida xuduuru majlis anas doostaan jamcad wa an yakadu bakhwan wa dar faraz kanid adigu ba fahmo kaas yani ma ahayn waa kelmado ma bakistani ba ma urdu ba ma meel kale galaan ma maleeshiyan ba kalimaadkaas dadka lagu dul aqrin jiray waxa la dhihi jiray marka waa lagu daweynaa ilaa haddana dad baa ku daweeyay waxyaabaha ay dadka ku daweeyaan waxa kamida tamaa'in baa la xiraa
qardaas in isaga qofka loo xirana dawo ma aha maxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam tacliiq tamaam isaga marka diiday iyo talaa'is waxa jira marka xirsiyada qaarkood ay kala furtid xirsiyada qaarkood marka kala furtid waxa ku soo baxaya talaasin far yuhuud ba ku wada dhigan yihiin yani xirsi walba inaad furtid baan kugula talin lahaa si aad noocan maaragtay uga daba tagtid xirsi walba inaad furtid aad uga daba tagtid baan kugula talin lahaa waana muhiimadeeda leedahay markaad furtid waxa ku soo baxaya maxay waxa ku soo baxaya waxa la wixii markaa ku dhex jiro talaasimi anigu kuma dhihin qabri walba hala soo faaga laakiin waxaan ku yiri qaraj xirsi walba markaa hala furo waxa la mid ah waxyaabaha la sameeyo waxa kamida tacliiq alwada waxyaabaha ay maaragtay micida waraabaha kale iyo laf gorgor ba qofka loo xiri jiray waxa kale loo xiri jiray waxa kamida mesela masawir daanyar ba ku dhex jira waxyaabaha dadka lagu dhex jiri jiray oo lagu ridi jiray marka dadka la daweynayo waxa kale kamida kuul yar oo iyadu markaa khirsi oo midabkeedu buluug u yahay ayaa lagu dhex ridi jiray baashan aleesho ay dhahaan oo laga soo qaato badda ayaa lagu dhex ridi jiray waxa kale ay dadku ku daweyn jireen waagii hore cusbo yar baa la karkarinaya kadibna guriga meelihiisa geeska lagu shubay waxa la leeyahay ilaahu yaana loo soo dhaafin il jinni insi intuu hanaga istaagnaato oo xagga hanaga istaageen waxa kale lagu daweyn jiray waxa kamida goobaabin yar oo markaa kuul indha kuul oo kale ayaa qofka meesha looga dhajinaya si marka waxaan aad ugu badnayn annaga wadankii in la samayn jiray biyaha badda ayaa meelaha lagu xiri jiray biyaha badda waa biyo milix ka samaysan markay raagaan oo 10 maalmood raagaan way kuuskuusanayaan subaxii waan soo kaxayna waxaan leenahay konton ilood baa soo gashay meesha cariish baaba deganaya maxaa laga ilaysanayaa muturku buu degan yahay waa la ilaystay isaga ka jajabanta macawistu wato wada ka dhaxaysaa wasuuna ku xirta xataa mala dacaskiisa waa ka naxaysa waa la ilaysay kulay konton ilood baa xalay soo gashay markii biyaha badda uu buu daariyay kaas Soomaa waxyaabahaas marka waxay kamid tahay waxyaabaha qaraa'ibtay kamid tahay runtii waana aqaa'idka khaldan weey aqaa'idka khaldan marka la sameyn jiray kamid tahay walidaalika waan arki doonaa sida ay sameyn jireen waxa kamida ducooyin fara badan ama waxyaabo fara badan ay aqrin jireen waxa kamida adkaarta ay aqrin jireen waxa kamida ama inay dhahaan 5 wa khamisa waxyaabo dadka lagu aqrin jiray kamid tahay 5 وخميسة وعلى لجد 5 سورة الفلق 5 آيات بك كوبا تقول عبر بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدين إذا حسد مركا 5 وخميسة أيا وذاتك قريا تصبح يربى سواق هذا ناس الصبح يردن وذا يقول ورفع دنا 5 وخميسة بمعنى وح هذا يجيكي أما شيطان كي هذا waxyaabaha waxay kamid tahay waxyaabaha runtii aan soo celin jirnay kamid tahay iyo adkaar kale oo runtii aanan waarid aanan ahayn oo marka ay sheegan fi ashyaa ghariba oo marka aad xirsiyada aad furfurtid waxyaabo fara badan baa kaaga soo baxaya biidilaahi subhanahu wa ta'ala tayib haddaan u gudubno qisas fara badan oo cajiiba ay culimadu marka soo wariyaan kutub al-arab iyo adabkooda marka u laabatid literature-ka suugaantooda marka u laabatid iyo kutubtii sidii مثلا الامام القرطبي soo xigtay ابن القيم baa soo xigtay الجاحظ في كتاب الحيوانات iyo الحيوان كتاب الحيوان iyo waxyaabo cajiib ayaa ku yaalo carabtu marka dad profession ka dhigan jireen dadka ilaystaan ka waran subaxii markuu qofka uu guriga ka soo baxayo ujeedadiisana ay tahay inuu dad un ilaysto qaraa'itaas in yar markaan ka tilmaano waxay leeyihiin wuxuu yiri الامام القرطبي wuxuu tilmaamay wuxuu yiri reer lagu magacaabo reer bani asad ayaa aad loogu yiqiin inay dadka ilaystaan nin baa soo baxaya marka wuxuu arkayaa marka la shilis ah neefka marka cajibanaya saasoo indhaha ula raacaya markaasuu yiri cajaa'ib badana buu leeyahay inta kalimadaba ku dhawaaqaya kadibna qof meesha fadhiyo wuxuu leeyahay midida ka daba qaada neefkaas dhulku noo yaalay waa laga daba tagay wala soo qalaya yani harkaas bay gaari jireen ila hadhihi daraja walidalika ayada markay la wayn yakadu alladhina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim al-imam al-qurtubi wuxuu leeyahay si ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay il ugu dilaan bay 3 maalmood buu qofku isu soo qadinaya meeshu iman rasuulku isha la aadi jiray waxna kama qaadi jirin wa in yakadu bi quraanka marka uu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida marka masalada marka la tilmaam waxyaabaha qisooyinka ibn al-qayyim al-jawziyya waxa uu tilmaamay qiso runtii waxyaabaha meesha ku qoran qisada iyada ah wuxuu u tilmaama un kaliya in qofku noocan ma li taraf wa illa nas laga qaadanay marka mala wuxuu leeyahay waxa suurtagala qofkii wax ilaysay in isaga marka ishi lagu celin karo markii lagu celin karo isla isagii bay ku noqonaysaa wuxuu marka soo xiganay wuxuu leeyahay waxa dhacday group baa wada safray qiso qariib uu sheegaya Abdullah Saaji safar buu galay safarka marka maxaj buu ama umra u ahaa nin baa la socda lagu yaqaan dadkii inuu marka ilaysto wuxuu saa indhaha wala raac wuxuu baaba'aan buu sheegaa
kadib waxaa dhacday hal markaa iyadu markaa uu watay cabdullaahi saaji buu isha la raacay kadibna hashii markii ay dhulka ku rafa